xukuumadda Soomaaliland ayaa magaalada Burco ku soo dhaweysay barasaabkii maayirka gobolka Cayn ee Buuhoodle Puntland kuwaas oo si rasmi uga soo goostay maamulka Puntland kuna soo guriyo noqday dalkoodii hooye Soomaaliland. Munaasabada lagu soo dhaweynayay mas'uuliyiintan ee ku qabsantay magaalada Burco waxa goobjoog ka ahaa wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Injineer Cabdirashiid Ducaale Qambi, barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye iyo mas'uuliyiin tiro badan. Ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii iska caslay maamulka Puntland oo kamid ahaayeen maayirka degmada Buuhoodle Salebaan Aadan Dheere iyo barasaabka gobolka Cayn ee Puntland Maxamed Xasan waxaana eedeymo u soo jeediyeen maamulka Puntland oo ay ku eedeeyeen inay ku fashilmeen wax ka qabashada baahiyaha ka jira deegaanada Buuhoodle waxaana mas'uuliyiintan iska caslay maamulka Puntland ay maan u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliland. maanta oo ay tahay taariikhdu 28 Oktoobar 2018 waxaanu joognaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer aniga iyo gudoomiyihii gobolka Buuhoodle labadayadba waxaanu ka tirsanayn maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan ugu magacaabnay maayir iyo gudoomiyihii gobolka taasi waa taa waxaan u mahadcelinayaa dadaalkan faraha badan ee aan halkan ku joogno ilaahay baa mahad iska leh mahadeeda waxa iska leh wasiirka Cabdirashiid Ducaale Qambi oo muddo fara badan hawsha ka shaqeeyay dhammaan oo idin mahadcelinayna soo dhaweynta ballaaran aad noo sameyseen anigu ma tagin koonfurta laakiin ninka ay soo dhaweynayaan aad u jecel waxay ku yiraahdaan soo dhawo minankaaga weeyaan marka waxaan qiyaasayaa inuu gurigayga yahay horena aan uga maqnayn insha Allah taala taasi waa taa waxaan ka helnay macsuumad rasmiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waana ku nimi kagana mid noqonay dawladda Soomaaliland inaan shacabka Buuhoodle si gaar ah ula hadlo waxaan ahayn dad adig mateen oo aad u dhaaranay dantiinu meel kasto ay gaadho waanu maraynaa waxaan ka nimid gobolka Buuhoodle waxaan anigu ahaa gudoomiyaha gobolka Cayn Puntland taasna waan iska casilay waxaan iskaga casilay wax qabad la'aan ciidamadii oo mushaarkii aan helin wasaaradii iyo shaqada waxay xaq u lahaayeen aan helin saasoo ay tahay cidna la shaqeynaysa oo wixii aanu xaq u lahayn xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Buuhoodle iyo madax dhaqameed halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada reer Buuhoodle inay la shaqeeyaan xukuumadda Soomaaliland si deegaankaasi looga hirgeliyo wax qabad la taaban karo. Taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Gaashaanle Sare Axmed Cali Shabeel ayaa soo dhaweeyay mas'uuliyiintan ka baxay maamulka Puntland. waan soo dhaweynaynaa dalkiinni baa timaadeen taariikh ma tihidin waxaan idin leenahay sida halkaaba ugu shaqeynaysa iyo si ka wanaagsan ayaduna hadii la yiraahdo ugu shaqeyn doontaa Soomaaliland. barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye ayaa si niyad samiya dalka ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiintan iska caslay maamulka Puntland. runtii maanta waxa sharaf weyn oo ah inaanu halkan ku soo dhaweyno gudoomiyihii u qaabilsanaa maamulka Puntland Maxamed Xasan gobolka Buuhoodle iyo ayarkii Salebaan Dheere isna u qaabilsanaa Puntland magaalada Buuhoodle oo runtii maanta aan ku soo dhaweynno gobolka kadib markii ay ka soo asxabeen ama ay ka yimaadeen ama ay ka soo hulooleen maamulkii Puntland ee halka ku joogeen iyagoo runtii ku qanci waayay maaragtay maamulkaas iyo sifaha uu wuxuu wado una soo hiloobay dadkoodii jamhuuriyadda Soomaaliland qarankoodii walaalahood ciidoodii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Injineer Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa sheegay in Soomaaliland tahay dal la wada leeyahay isagoo fariin u diray bulshada ku dhaqan deegaanada Buuhoodle. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo aan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka Cayn ee Puntland Maxamed Xasan iyo maayirka Buuhoodle Salebaan Dheere oo door biday in ay maanta ku noqdaan Soomaaliland oo dalkooda ah oo ay la shaqeeyaan oo ay waxay u qabanayaan ummadda u qabtaan oo wixii horumar iyo wixii dana iyo wixii buuxda ugu jirto iyo wixii nabadgelya iyo wixii nabadgeliyayna u yimi ma go'aan ku gaaray meeshii ay Puntland ka shaqeyn lahaayeen
inay somalilan oo dalkay u dhasheena ay ka shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay soo dhowaada waxaan leeyahay waxa aanu idinkala hadhaynaa ma jirto waa maxamed ibraahim british TV-ga qaranka Somaliland Burco.